waxaa maanta magaalada Arbajahan lagu soo gabagabeeyay sidoo kalena shahaadooyin kala duwan lagu guddoonsiiyay ardayda wax ka baranaysay madrasada Al-Huda ee magaaladaasi. Ardaydani oo isugu jira kuwo dhamaysay madrasada qaybta dugsiga sare ee loo yaqaan thanawiga, kuwaas oo hadda laga rajo qabo inay ku biiraan jaamacadaha Islaamiga ah ee dalka iyo dibadaha. xafladda qalinjabinta ardayda madrasada Al-Huda ayaa waxaa ka soo qayb galeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka Wajeer iyo qaar ka mid ah mudanayaasha laga soo doortay deegaanada kala duwan ee ismaamulka Wajeer, waxgarad culimaadudiin bulshada deegaankaasi iyo sidoo kale ardayda madrasada Al-Huda. ugu horeyna waxa ay ardayda soo bandhigeen culumtii ay halkaasi ka barteen. حمدا يبالغ من رضوانه الأملا، والصلاة على خير الورى وعلى سادتنا آله وصحبه الفضلاء. maamulaha madrasadaasi ayaa ka warbixiyay caqabadihii uu la soo maray in maanta uu soo saaro ardaydani. waxaa lagu bilaabay 2012 bishii koobaad aan iskuul ku bilaabnay. 6 bilood waxay ku socotay macallimiinta fasax u soo qaadanaysay oo macallin magoo tawiig dhigaba dugsigiisa ku noqonaya ama madrasada ku noqonaya. anina waxaan jooga meesha caamiri oo macallin ka ahay, wiigan fasax soo qaadanayo oo qorayo oo dhigaya. kabacdi Sheekh Cabdirashiid ay soo daamanay, kabacdi Sheekh Xasan Cabdina soo daamanay. 6 bilood aan saas ku soo wadnay, kabacdi aniga ku soo wareegay. marka waxaan leeyahay bulshada reer Arbajahan war runtii aniga 5 sano soo dhaafay khudba ma akhrinin. waa 5 sano soo dhaafay dadkii wax barnay insha Allah khudba ma akhrin. aniga maqsadkaan leeyahay waa kaas. madrasada Sheekh Nuux arkay dad badan laba galaas ay iskugu jiraan. macallimiinta joogtana waa 6, 2 nin oo inta oo ku aan takhruuj kamid ah iyo 4 kale aan. waxaan leenahay markaan oo bulshada leenahay madraso mutuun lagu xifdinaa عشرة لبرة إلى ثانوي ككوبن 6 معلن كلاس هذا 5 كلاسيين بل هذه الجدول كاس هذا ما أنت كان لسه والله ينفكرين. qaar ka mid ah culimadii halkaasi ka hadleen iyo waalidiinta ayaa ardayda ku booriyay in ay laba jibaaraan dadaalkooda. marka ugu horeysa aniga horta waxaan leeyahay ardadii halkan ka qalinjabinayso ku dadaala cilmiga iyo qiimaha aad soo barateen. cilmi meel lagama gaarin, hadda furaha ayaa lidin sii miftaax ayaa lidin furi. maado kastana in baa linkaga tusay kow ma jooge hore u socda. dadka meeshaan maanta ka takharujeen in ay madaxa asbararen oo cilmiga sii wataan oo culummada laga faa'iidaysta. cilmiga wax dhammaana ma laha. khayr allah siiyo culummadii ku soo dadaashay iyo maamayaalkii ku soo dadaalay odayaashii ku soo dadaashay khayr allah inka siiya. waxa kale waxaan rabnaa ilmaha iskuulkana in la geeyo madrasadana la geeyo sida labada meeloodba ay ugu aflaxaan. waxaan codsanayaa madaxda maanta imaaday oo meeshan ka soo qayb gashay oo dadkii oo countiga maamulay ka mid ah inaad il gaar u fiirisiin. waxaan codsanaynaa dowladda inay qarash ku bixiso madrasayaalka inay qarash ku bixiso. maxaa yeele waxaa laleeyahay iskuul moogii madrasad dowladda ma dhisay. maxay u dhisay? madrasadana waa cilmi, iskuulkana waa cilmi. qaar ka mid ah mudanayaasha golaha hoose ee baarlamaanka Wajeer oo halkaasi ka hadleen ayaa dhankooda ardayda u hambaliyeeyay. aan leeyahay aan u hambaliyayna ardayda qalinjibinta oo certificate la guddoonsiinayo. khayr allah siiyo, waa mahadsantihiin, shaqo fiican aad qabateen. idinka iyo culummadii wax in soo bartay waxaan u baahanay tribkan haday 100 ama 50 ama 20 ama 30 ay martay sanadka damba inay double noqdaan ama 3 joor kullaabkeed ay noqdaan insha Allah taala. waxaan leeyahay Arbajahan wallahi runtii maanta arrin wanaagsan baa samaysan. khayr allah insi arrin ku dayasho mudan qudwa xasana dhammaan reer West dhammaan reer Wajeer khaasatan reer West arrin qudwa xasana ayaa samayseen maanta. ilaahay in barakeeyo ku dayasho
wanaagsan baa samayseen man dalla calaa khayrin ninkii khayrka sameeyo wuxuu la mid yahay wuxuu helayaa khayrkii uu sameeyey cid kastoo ku diyatana khayrkii iida ku diyatana ijirkeedu helayaa marka khayr wanaagsan aad jidayseen maanta ilaahay in gargaaro walaalahay meeshaanayta waxbarashada ka bogay maanta sidii hor loo sheegay waxbarashada sideedaba ma dhammaato albaab la furaayo waay dadka hadlaya waxaa ka mid ahay miftaaxi maanta furaha lagu furinayo albaabka ay umbaalinaysiiya ma ogi waxbarashada ma ana gaaran guri waxa ku jiro xaqiiqdana waa taas waxaan rabaa inaan bogaagin yar aan siiyo dhallinyartii culummadii sharafta lahayd ee maanta ku qalin jebinaysa halkan waxaan iin sheegayaa waxyaabaha aad ka hadasheen waxaa ka mid ahay in la taageero mooraalka la indhiso kuwan way kuwii maaragtay oo dhakhtar noqona kuwii engineers noqona waa kuwan kuwii cilmiga madrasada barti kuwii maaragtay pilot noqona waa kuwan laakiin dadka madrasada aan soo marin tarbiya ma helayaan akhlaaqta ka dhumaysa waxaan idin leeyahay wixii soo barateen dadweynaha siibara si sheegay Sheikh Salaad waxaa kalaan idinku dara wixii soo barateen idinka ku dhaqma hal idinka arka ugu dambeyntiina wakiilka deegaanka Buurdheer iyo gudoomiye xigeenka amniga deegaanka Arbajahan Mr Kiboy ayaa bulshada ugu baaqay inay midnimada iyo amaanka xoojiyaan. Munakosana ya nini na munashindania nini? Hii shamba ni yenu, so tafadhali kidogo kidogo kulikuwa na hiyo shida kidogo, lakini tafadhali kama raia wema tuweke amani, tukae na amani. Dhulkan maanta markaan ka soo baxno Wajeer ilaa halkan dhul badan oo waxaan weydiinay major leader war dhulkan beerta laga dhigan karo weyn maxaa waay laakiin wuxuu dhahay hadii qacan la qaado 100 gurin soo qaadanaysa meelo badan waad hadda waan dhibka uu naga haastaayo hataa ceelkii meeshii laga qodi lahayd dadkii baahnay tuulooyinka nin baa iska oodanayo dhahay anaa iskale waa darkiisan wixii shalay daraad ka dhacay Mandera إليه هو تنبات هاسية ومدى الصوماليات ميلو البويجوك تدقال كان إليه نقو حجي قبيل كان وحو تراي مالها إليه قران كيس وحو قدها يونينا اسكو كالبرتان بان لوغة تلقالي صوماليا ميلو البويجوك تاني قاسة الرواجر إنها النبات أن مارتاي آدو إلى لنا ضد وضع دشاننا هناي له اسكو لوغة اسكو دين اسكو أف إستن سوئه مركا تاوان يقوبا بنايا ولا ليالو أرمهان آدكو فولحون وهذا صدعي بقوز مركا اللي سيدها قبل كوغوي بري مركا تاس وحان ليها ولا ليالو ميلو البويجوكتان وقت والبوت صلاة تكتان ومدان صوماليات هلو مرف هذا حدا إنه مارت إلهي بقوز صوتما ونبات أنقوبا دقنا عبد الرحمن معاوية ورباهين تيستا اسمها ملك وجير